بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت وايد بيشو أفريقيا طبعا بشير سنة بدي يكون حسنة طبعا كي waxaan si jiray ku qabtay anigoo ah suldaanka beelaha dhaweyne sultaan jaal Abdullah Ali hodeel abdo lagaga hadlo maanta uqaash beelaha dhaweyne taageeri gudida mutakortinta dawladda gudida mutakortinta oo lagu hambalyeynayno madaxweynaha والله أنا همبلي علينا. الخميسة وعلى كجال لنا أنا بوصل لوين هنا متكررين مدة لو كردية دولة تاسو أنا كنت أجرسل هاي دولة كسر بسنتي سومال لان دور كم دحوين يسوسوا بدلين دولة دي وقت هيدا بدلين ده هو حقبت كفينا ده تاي وعلى دياد كسر لوين هنا أنا كنت أجرسل هاي متكررين تا قلا بورتي ده يقول وكيلته يقول لي الحكومة وحنا نشعلين وبسلوك للمدة إن تعالوا قبضيو يا الآن يا ذو الحسين مركب الله يقول حقبت كحكومة يتيجا إلى هاي. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحنا لنا حنبلي الله لنا هاي. الكردنت يوم هذا لو كردية هذا وقتها مدة الكردية أيضا فرصنا الصوت ما هي هاي ظروفها وجد. هذه أي كانوا ظروف التمد ده وحويان هكي اللي قبل بري لها هالكي ما يتودى كدباتير رفض كدع الهاي إن اللي سكت ناسلو إن محانا هذا وقت وحي اللي قبل لها ومد وحي وناقي إن بتقليه يقول لهاي وحي مارتها دقنا شيء يوم حال اللي لها مارتها الحسلوني إن ده لقالا واجب ويا مقدس ويا سيدا درتد وحن لنا هاي وحنا كنا معنا مال واحد نبتقليه دولة الصومال waxay ku caalmasho waa nabadgelyo wax weeye xisbiyada iyo maxay dawladda isku tanaasul bay sameyn jireen sida darteed in isku tanaasulkaasi maanta la sameeyo wanaaga laga wada shaqeeyo dimuqraadiyada laga wada shaqeeyo dadnimada laga wada shaqeeyo wanaagii Soomaaliland lagu yaqaanay iyo wax wada qabashadii iyo walaalnimadii iyo gacan qabsigii waa inay timaado waa in maxalada hadii maxalada mudaniin u baqaban lahaa intaasi kamaanta haya ee shalay hayeen ku ogolay maanta ma ku ogolahay إن أنت لو كردي سيدا درتين وحنا لنا هنبليو أنت سلوجنا وحنا لنا ولا لا يوم السلوجنا وقت وحير أنت لو كردي وحير بري بوي دمان وحنا تاجر سنة هاي مذكرين تقول تدا إيو برلمان كواي مدحوينا هاي مدحوينا كحجان كهو كرديين مدة سياين تحلك ودنك تاسو هدي runta laga sheego wixii loo baahnaa masiirka saxa ah ee maanta ummaddu ku u baahnayd in loo maro oo loo hogaamiyana ay tahay waxa salaamaya marti sharafta xaggan isugu timiday ee suldaankaygii ku jiro ee caaqilkii ku jiro ee odayaashaydii oo dhan ku jiraan waxaan ku hadlayaa afkii dhalinyarada ee beesha dhagaweyne marka waxaan ku soo dhaweeynaa muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waana ku taageersanahay waana ku raacsanahay waxa loo khilaaf loo soo wadaay ma jirto nabadda ku soo caanamaalnay awal baahan qabcaha isku haysanay u baarayno muhiima maadaama maanta loo kordhiyay la xal bay noqotay loo kordhiyo wadankuna sidaas uu ku tagayaa oo ku xasiloon yahay nabadgelyadeena waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu sida inoogu sii wado waxaan mataqaanaa xaggan ka hambalyeynaya golaha guurtida ee mataqaanaa sameeyay sida wanaagsan ee sameeyay kororsiga madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa u kordhiyeen waa markii ay dhinac kasta ka eegeen ee isku raaceen in mataqaanaa xalku sidaa uu yahay dawladdeena waxa ku taageersanahay muddo kordhinta loo sameeyay odayaasha way hadleen oo way gabagabeeyeen waxa weeyaan waxaan halkan kale ka tahdiidinaya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland مدن عبد الله الزيلعي عبد الرحمن عبد الله الزيلعي باقي وصوص عري إن حزبيه وإسكوي ماده مركا يكون هذا لباتك بشر واحد رجيني إن حزبيه المعارض كنا هنا مركا بوجو شاسي سيدا يبلغ قادين دي مركا وحوي وده هذا العرس هاير بالقدر مايو مدو كردين تردم تاكينتي وكميشن كسنة بكردية لبدا حزب كلمية إيو مقرنا يساي مقرنا يساي أوعدنا
iyaguna waxay ku gaarsiiyeen ilaa bisha September guurtidu waa 6 bilood waxay ku dareen 6 bilood bay ku dareen marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in doorasho si wanaagsan ugu qabsoonto waxaan rajaynaynaa in xisbiyadu ay diyaar garoobaan xisbiyadu wax badan baa ka beylahsan oo may qabsan kalfadhiyadoodii ma garanaysaa ay golaha dhexe oo marka waxa weeye ha qabsadeen muddada waqti weeye ay diyaar garoobi karaan insha Allah waxaan rajaynaynaa in fursadda laga wada faa'iideysto oo marka waxa weeye commission-kana hawsha u harsan oo marka muddo uu ku dhameysan kara way tahay xisbiyaduna waqti wanaagsan way haystaan oo ay ku qabsadaan ma garanaysaa waxa weeye ku cadeeyaan musharaxiintooda madaxweyne ku-xigeen iyo wixii ka dhiman shuruuca kulli arrintaas waxaan rajaynaynaa insha Allah arrin wanaagsan inay tahay sida beeshu marka waxa weeye ay cadeysayna waa taageersanahay madaxweyne ku-xigeen in loo kordhiyo golaha wakiilada mulkiilaha loo kordhiyay iyo guurtida dhammaantood marka muddo kordhintaasi waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid marka waxa weeye ay ku hirgasho doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo waan hambalyeynaa inta yar ee hadhayna kulli isla qabsiga yar way dhamaan doontaa wada hadal ku dhameeyo billahi tawfiiq